وعليكم والسلام يا شيخ دينتم maxay ka qabtaa in xaaskaaga oo aad laba wadan kala joogtaan taleefanka aad dareen ahaan iska kicisaan sida gogosha aad u wada maamuleysaan oo kala jisaaka Allah khayr طبعا labada qof hadii wadiiqaha iyo dariiqa lagu wada xiriiraya ama maqal iyo muuqaal u aamiya oo cid kale oo la fiirsanaysa jirin wixii markay wada joogeen u banaana ba markay is arkayaan u banaan kaliya laakiin waxa muhiim ah in la xaqiijiyo ama laga dadaalo iyaga kaligood inay yihiin on aadama kale oo khadka kula jira oo daawanaya uusan jirin dadaal baa laga rabaa dadaal wixii ka badan ee awoodooda ka baxsan ama inaan ogeyn iyagu loo qaban maayo digurigana degan tahayba kamera ku qarsoon lagu tulijiyoodan ogeyna way dhici kartaa meel daaqad iyo albaab yar furan qof inuu ka soo qoran soo guri ka dulasha ma iska dhici kartaa ayaba saas oo kale tay aadan ogeyn adigu takliif kuma saara laakiin wixii toos markay wada joogaan u banaana inay telefoon ku wada hadlaan oo ugu banaaya inay meel la istusayo muuqaala kaga xiriiraan waa u banaanta in lala arko cid kale la wadaagto iska ilaaliyaan billahi tawfiiq